garoonka diyaaradaha Tromsø ee dalka Norway ayaa fiidnimadii xalay waxaa laga daadgurayay guud ahaan dadkii shacabka ahaa ee dhoofaya iyo kuwa soo degayay iyo shaqaalihii ku sugnaa kadib markii hay-adaha baarista garoonkaasi ay ka shakiyeen boorso looga shakiyey in ay ku jiraan walxa aan dabiici ahayn waxaana durba garoonka soo gaaray ciidamada amniga kuwa oo baaritaan degdega ka sameeyay goobta lana wareegay amniga garoonka guud ahaan dadkii ku sugnaana dibadda uga saaray garoonka taliyaha howlgallada booliska Robin Lingeberg ayaa ku waramaya in ay markiiba u direen sawirada raajiga ee mashiinka wax muujiya boorsadan looga qaaday magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway halkaas oo baaritaanada ay ku sameeyeen kooxaha ku takhasusay miinooyinka iyo walxaha qarxa waxa uuna intaa ku daray in la xaqiijiyay boorsadan waxa ku jira in aysan ahayn walxaha qarxa oo ay yihiin oo keliya keyboard iyo fiilooyin kala duwan taa oo keentay in ay aad uga shakiyaan shaqaalihii sikuuradka ee eegayay boorsooyinka dhex maraya mashiinka baaritaanka waxa uuna intaa ku daray taliyuhu in ninkii boorsadan watay dib loogu celiyey lana fasaxay maadaama waxa uu watay ay ahaayeen wax caadi ah ha yeeshee ay ka shakiyeen shaqaalihii mashiinka joogay taa oo keentay in xaalad degdega lagu soo rogo garoonka guud ahaan dadkii ku sugnaana laga saaro madaxa isgaarsiinta shirkadda Avinor ee maamusha garoomada diyaaradaha dalka Norway Helena Jensen ayaa ku waramayso in markii xaaladani dhacday si dabiici ah oo waafaqsan shuruucda u degsan looga daadguriyay guud ahaan dadkii kala duwanaa iyo shaqaalihii ku sugnaa gudaha garoonka waxa ayna intaa ku dartay in muddo saacad ka badan ay ku sugnaayeen garoonka dibaddiisa kadibna markii howlgalka uu dhammaaday dib loogu fasaxay in ay ku soo noqdaan gudaha garoonka waxaana lagu soo waramayaa diyaaradihii dibudhaca uu ku yimid iyo kuwii soo degayay iyo kuwii kaleba jadwal saxa loo sameeyey si rakaabka dibudhaca ku yimid ay diyaaradahooda u raacaan nidaamkii garoonka magaalada Tromsøna uu si caadiya ku soo laabtay halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine